siyaasiyiintani ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo shirkan jaraa'id ay ku qabteen nasteexa hotel ee magaalada Burco ayay kaga hadleen go'aamada khuseeya iscasilaadii mudane Cabdiraxmaan Ciro ee baarlamaanka Soomaaliland. Hogaanka garabka dhalinyarada iyo xuquuqul insaanka ee xisbiga wadani ee heer qaran mudane Maxamed Suudi iyo Cabdirasaaq Sugaal oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga ee gobolka Togdheer ayaa Cabdiraxmaan Ciro ku tilmaamay siyaasi waqti wanaagsan la soo maray baarlamaanka Soomaaliland. runtii waxa lagu xasuusan karaa 12 sanana aynu oran karno Soomaaliland intii jirtay marka loo eego haday tahay xeerarka iyo wax qabadadu qabtay in boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 75 oo uu gacan ka geystay intii uu joogay baarlamaanka intii gudoomiyaha ka ahaa. waxa kale oo lagu xasuusan karaa sidii uu isugu hayay baarlamaanka Soomaaliland iyadoo qofba dabeecad gooniye leeyahay, qofba xaafad gooniye ka yimi, qofba aragti gooniye leeyahay, intaba run ahaantii sidii isugu hayay qofba deegaan gooniye ka yimi, sidii quruxda badnayd ee dulqaadka lahayd ay ka muuqatay mas'uuliyadu, deganaanshuhu iyo hadal fiicnidu iyo hadal wanaagsanidu ay u sii dheereed kartidu iyo wax qabadku. run ahaantii waxaan oran karnaa xeerarkan dalku imka uu ku socdo horumarkan aynu gaadhnay dalku hadaanu bilaa xeer ahay hadaanu xeer lahayn horumar ma gaarayo, hadaanu lahayn kala dambeyn iyo cid kala hagta iyo shuruuc horumar ma gaarayo. waxaan oran karnaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro waxa weeye qofkii koobaad ee u horseeday nidaamkan aynu u socono dimuqraadiyadda ha ahaato. run ahaantii aad iyo aad baan ugu hambaleynaynaa 12 sanadood xilka uu hayay waxa qabsamay waxyaabo fara badan. waxyaabaha faraha badan ee qabsamay waxa kamid ah in uu ahaa oday aad iyo aad u weyn oo wax kasta ka dhageysta maxaa golihiisa ahna in u soo dhabaradaygay culays kasta iyo cadaadin kasta oo yimaada. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxa dul hoganayay intii uu joogay baarlamaanka culays ah in ay xukuumadihii jamhuuriyadda Soomaaliland kala dambeeyay ay ku foongareeyaan golaha lacag oo ay golaha kala diraan oo maxaa dhahdayay kiisas lacag laga soo dirayay madaxtooyada. kiisaska lacagta oo sidii loo burburin lahaa golaha xeer kaliya aanu ansixin hase yeeshee intaas oo caqabada uu ka soo gudbay. waxaan oran karaa maanta xeerkii ugu dambeeyay oo ahaa xeerkii labada gole ay ansixiyeen in qasab lagu meel mariyay. Cabdiraxmaan intaas oo dhan oo waxyeelooyina iyo intaas oo dhan oo ay dad ku dhinteen mid walba uu soo dhawaradeegay. Sakariye Ilyas Jakarta warkaasteen Burco.